hawshan wanaagsan ee quruxda badan leh iyo soo dhaweyntan oonan weli kasban sida runtaa aad iyo aad ayaan idinku mahadnaqaya waliba khaasatan aniga sharaf dheeraada madaxda soo socota ee waddanka ururada la hor socda iyagoo aan ogahay hawlahoogu inay fara badan yihiin inay halkan iskugu yimaadaan oo ay waqtina siiyaan oo ay airportkan yimaadaan waa arrin qaali ah oonan iloobi karin aad iyo aad ayaan dhammaantoodba ugu mahadnaqaya waxaan khaasatan doonayaa inaan magacaabo oon mar kale ku celiyo si ummadda ay u ogaato madaxda soo socota ee waddanku dadka ay yihiin oo wakhtigan soo dhownaa wax badan la arki doono hadalkooga iyo kartidooda waxaan ugu soo horraysiinayaa walaalkay iyo saaxiibkay guddoomiyaha ururka mideeye cusmaan badmaax waxaan raacinayaa tala wadaag guddoomiyaheegii ibraahim buubaah oo ibraahim anaku si gooniya isagu inuu og yahay ma ogiyo si gooniya aanu taariikhda iskugu kaayo xidhay oo aniga faamiligiisa macallimiinay ahaan jiray ismaaciil baa aniga macallinay ahaan jiray markaan camuud secondariga ku jiray marka halkaana tol baanu ka nahay halkaana ibraahim aad iyo aad buu ibraahimna u mahadsan yahay xogayaha ogaal ururka ogaal cabdikhaaliq isagana waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay inaad halkan noogu timid hadalkaagiina way deeqay guddoomiye ku-xigeenka koobaad oo aan nin ballaadhan oo khibrad badan leh xagga maamulka khaasatan khibrad badan ku leh cumar shacayb oo ah guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee ururkii waa beri oo nool inuu halkan nala joogo isaguna hadlay aad ayuu u mahadsan yahay guddoomiye cabdilaahi dahab oo dee isaga hadalkiisa inaan iska dhegaystaan jecelahay wuu balballaadhayaa arrinta markaa si wanaagsan buu hadlay isagana waxaan isagii rajana dee waan soo dhoweynayaa in halkan noogu yimaadnay deena sharaf weyn ayaa aniga iyo ururka iyaga hilaac na siinaysa xogayaha dalladda guud injineer xamse anigu ilaa maalintan inaan kaa bartay qof miisaan leh da'diisa caqligiisu ka wen yahay degan hawsha aan ka seexan saqda dhuxuu email kuu soo diraya arrimihii halkaasay marayaana ogaada mushaahara kuma qaato waxa wadaun damqasho qaran ayuunbaa wadda marka walaalkay xamsena waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay siyaasi nuuraddiin in badan baanu sheekaysanay anagoo labadeedoo qura ah isagoo dad kale la socdaan udheelalkan deganaa baanu maqsinka isla galnoona aad u sheekaysanay xafiiskaanu ku sheekaysanay waa nin carabkiisu ballaadhan yahay maskaxdiisu ballaadhan tahay waana mustaqbalka dhallinyarada soo socota ee ilaahay caafimaadka hadduu u daayo aan dee rajaynayno baabuurkan dalcadda dheer fuulaya inuu markiisa la wareegay isagii inta la socota iyo dhallinyaradii marka aad iyo aad buu u mahadsan yahay walaalkay nuuraddiin maanta ma aha axmed ismaaciil samater iyo hilaac maalinteedii maaha waa maalintayadii ururadii haddaanu nahay waa maalintayadii annagay noo taallaa sidaannu isku edbinayno isku dabagelayno dee xoogga iyaga iyo kartida iyo maskaxda meel iskugu shubayno waa arrin noo taalla laakiin tacabka iyo hamadda waanu wada leenahay waa maalintayadii haddii aanu nahay ururadii taasina odayaasha dhaqanka inoo haya ee halkan jooga si wanaagsan iyaguna u hadlay si wanaagsanna noo salaamay iyaguna dee waa raasamaalkii waddanka weligoodba dee waa raasamaalkii waddanka marka aad baan ugu mahadnaqayaa iyagana waanu is waraysan doonaa in yar aan ka idhaaho ururka iyagii hilaac iyo dadka halkan jooga hilaac ka tirsan guddoomiye ku-xigeenka koobaad walaashay muna bila xirsi oo aan waxaan idiin sheegayaa reer somaliland waxaan leedahay haddaad doonaysaan qof khasnadaad u dhiibataan oo idiin xafido miftaax waa muna bila xirsi wey ogaada reer somaliland oo kale waxay isku darsatay dulqaad karti iyo ammaano waa arrimaha soomaalida way ku yartahay saddexdaas wakhtiga adag ee la joogo meel walba ay soomaali joogto muna
sidaas bay tahay hablaha la shaqeeya ururkayga ku jira madaxda ka mid ah ya Muna Khaliif oo ah gudoomiyaha qofka noo maamula golaha dhexe madaxda waa la mid laakiin aad baan halkaa iyagana u salaamaya afhayeenka maxamed cumar jibriil maxamed cumar jaamac roolay cumar jaamac موج بمجلس اللي يدها وانك ديره هالكن في قناة هالكن تاجنا هذا الكيدين وذي إسقنا وان وقوم هذا غير ذلك أو كياني وكان راي الله وحي وكان كهالكن كجوجي أنت إن مقلس السيد السلك كودي دي فولينتا قوله ده حد ما تود إيوه ده كان لصح ولا كتير سن ودن كدتك وجهر هي مركي ما تصحافة التلفزيون كي يجنا أدبان لما تود وقوم هذا قيا أنت كلام هذا كديرين مايو أنا ما أنت ونرجع سجوجو حسها يقول جرا ولا بقى أفبولية يا لا بحسه أو إسحايا يا أو وده السعون يا ما أنت يقول جرا وأنا وحنفلا يا إن لا يلقبه لكن توجه رئيسه وحوي حسها وحوي داني وكفر أحسن إنه ودن كيني كسر نقضي أو أنا إيمد إن صور صدود ده هو ده ودن كيدتك إن عيد سو أركو إن دول كيجا مريكان كوي كوي يرتاح يد عركة بلوغا ما أنت ولي با خير كسبوا ويجي هاي الضرورة يروب سو سان لي هبد مداية وقروح جونية وقفكي كم قانون باقران كرا أنت جورل بهوس شوكتا أنت عين كاس بدنا ما وما في صدان يد قصل كا يو دخ سينما دا يو كفتنكا هل كان يلا أدبان وصو حيسي marka de wax ka wanaagsan iyo anigu meel ka wanaagsan oo nimaada garan maayo taasi waa mid waa farxad buuxda dhanka kale laakiin waxa la socota qoomamo weyn dilka dhimashada daawaca adduunyada magaaladii Laascaanood in kamid ah iska burburtay wali deecaankeegu socdo de wax laga seexan karo ma wax maalin qura saacad qura la iloobi karo ma marka aniga halka qalbigaygu muruga ka buuxda xanuun baa ka buuxa dadka walaalaheena ee wadanka inala leh adeegata wadanka inala leh waligeedna inala lahaa ya safka horena goor walba ku jiray iyagana waxaan ku raahay war baa isku kaayay dhiman waa la is wareysan doonaa waa la wada hadli doonaa daan iyo carab Soomaalidu sidaada iyo iskugu dhow wax Ilaahay abuuray daan iyo carab haddana de waa la isqaniinaa mar buu dhig yiri ka yimaado laakiin deedaankii carabku ma kala tagaan anigu sidaasaan aaminsanahay inaan nahay reer Somaliland inaan sidaa nahay amba bari deganow amba dhex deganow amba galbeed deganow amba koonfur deganow amba waqooyi deganow Somaliland daan iyo carab baynu nahay kolka deyn la yara adkaysto marka la isqaniino on danta guud ee isku keen haysa aynu ku wada baraari karno goor walba maxaan ku dhahay inaan laga tagin waa laga maarmaan ururada yaran walaalahay ururada madaxda halkan joogtana waanu wada ognahay hawl baa noo taalo waxa la naga filayaa haddaanu nahay dadkii sheeganayay in aanu siyaasad cusub keenayno raaci cusub keenayno dabayl cusub Somaliland keenayno oo ka saarta arrimaha adag ka saarta